maxaan malaynaa u darfaynaa awdaq meel gal magaala dhahan joogna aad u dhib badan gabadhan hadda annaga waxay noo qabato wax la koobi karo maho ayadoo woman rab waxaa jirta aan malaynaa habeen saan u barinle 12 noo askari oo booliis oo isbagtay noo joogaan waag markuu bariyey waxaan u maana kaambi oo maran waan qaylina salaadi meelan aadnaan ka suwayde dad haddii mar xafiiska laga qaato waa dad garigoon buu noqonay oo shafta iska noqonay meel walba wax u dirne 8 saac gudahoodana way noogu soo celisay gabadhana xafiiska anaga noo soo noqday waxaa maray inaga canab ay gabadh oo aad bay farxadeed iyo reenreenkeed aad buu noogu badan marka waxaan rabnaa caawa qow gabadhaas inaysan dhul ku dhicin oo aad nala qaadaan anaga waxaan ka imaaday meesha la yiraahdo dheeka harja baan joogo iiga yeerte marka halkan saasaan ku imaade waana ku mahadsantahay arinta waan ugu mahadinaynaa inta imaatay ka soo qayb gashanayna way ku mahadsan yihiin marka maanta cawdaaq meeshan ka soo qayb gale waxaan ogeysiinaynaa haddii aan nahay annaga reer Haaruun waxaan maanta wadanaa canab suuq guura inaan wadanana waxaa weeyaan waa shay xaq oo cadaalad ah maxaa yeelay waxaa la yiraahdo hebelow sidaan kuugu lisay iguma hambaynin ninka la taagan 15 sano yaa gambarkan faafi reer Haaruun ku dhisay marka maanta waxaan rabnaa gabadhaas inaan maanta waxaa weeyaan aan gambarkan ku dhisno cawdaaqna waxaa weeyaan wax meeshan jooga uu nala qaado sidaasaan waxaa weeyaan cawdaaqo idinka codsanaynaa haddii gabadha nala qaada annagana waan wadanaa wix cawdaaqo meeshan joogana waxaan leenahay nala qaada wiilkaasna waxaa weeyaan qoyska uu ka dhashay waqtigii uu qaatay 15 sanaan dhisayne intaa allah ku anfaco gabadha nala qaado oo billaahto marka walaalayaal inta igu horeysay hadalkoodun baa anna raaci gabadha Haaruun baan ku wadanaa Haaruun inaan ku wadanana waxaa kugu daliile 3 qoys meesh way fadhidaa wayna ka wada hadashay marba 3 qoys oo reer Haaruun haday ka hadashay haddii reer Haaruun baa wataa cawdaaqna waxaan ku baryaynaa gabadha inay nala qaadaan cawdaaqo gabadha inay nala qaado yaan ka rabnaa gabadha cidaas maanta ii baahatay way soo ajiibay bariga waxaan maqlay awowgay wuxuu ahaa Cabdullah Sheekh yaa Allah soo anta haluuqo wuxuu yiri waxaan rabaa ilaahay baan baryaynaa ina saalaxo maanta geedidaashad hal u gooro ganaalo maro wuxuu yiri haday ilaahay waxay u ceebayna raas alxamaad maxay khayru bayayd waxaan ka kunayna meesha la yiraahdo malka ree aniga maanta ilaahay waxaan ka bari gabadha in ilaahay nagu ceebaynin faataala mara ma tanti waxay yeeshila waa yaabana anaga waa yaabana awda ku gadaal ha soo dhigin maxaa awda qiyaasta galo ilaahay la baryo awda ilaahay uu bari wuxuu doonay uu heli jiray maxay awda dabada ku yeeshay muxuu yahay waa garanaa maxaa yeelay wixii kaalaa ku sheegi cidna u sahmiye oo ku soo noqonin oo hadhowna ilaah kuma dacana maxad malaysiin walaada ku soo noqdo dadka madaxda cidda lagu soo noqdo awda waxa kala geeyay walaada ku soo noqda marka hadii noo yeeray walaalahay noo yeeray ma hasan gambarkan ruux baa qaadan lahaa kuun baa u goglan lahaa tii ugu leetay midan haday noqotay waan qaadnay walaalnimo iyo ficni iyo wanaag baan ku qaadnay walaalahay waan ku raacnay hadii ayaga muwaafaqo ka soo noqdeen intay wada fariisteen ee isku wada raaceen aniga hadaan reeb maxay waan ku raacay waan qaadnay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodob waxaan ku su'aalani hunguri qasab ma wax la cun doono waay dadkan qabriga qiyaamaha ka dambeeyaan oo waxaan su'aalan rabaa dadaba la fort ma joogo ku idilna malayni oo maanti kura u bilaay sama fogo asagoo kura maanta bilaa faan duqul Soomaan Ibrahim duqul ma joogo kura baadiyayna malay kura aadiyayna maanta ka safartan horteed rag ma dooranayne rag oo aan dooranayne hadda si aan aragteenbo
dhibma u dheef maana ka helin oodaa rag aan ka dooranayne dhibma u dheef maana ka helin oodaa rag aan ka dooranayne hiqdi buu lagu siiyay dheeftiin maxay noqotay hiqdi aan reex mase reebtay wax ma qarinay run baana sheegay nin nacay nin u qadlo shalay maxaan ka maadnaa hajimay la dhaho hajimay degay ana maanta kuran soo bulqol bay u maatay waa wax hadla maanta iska dhaafad inay ka sameeyo qorxmay u aragtay ma ka saamayn marka ilaahay muxuu ilaahay waxa saaqa ilaahay dad wax ma isaaqo reer bil aadan oo nafleey wax ma isaaqaro saa u arko oo khadaanahay ana suugow oo bilcaan martidan maanta ee dhageysay wax oo laaqo ogaanta oo ka dambeeyo wax duq oo rabo oo dhaweeyo mawda ana suugow see bilcaan u too sharaf beeleed rag badan oo bay ka sharaf badan tahay marka rag badan oo aan dooran had gambar loogu jira oo awood ma haysto awood ba ilaahay baale laakiin awood haysto kuura oo aan arkin maanan arkin ragaas maanan arkin maxaa iska kamid abtay aan garin hata fadhido ramaydan ana suubo goobada maxaa la rabaa gambarka faafime ka fana la rabaa ka fana ada awla wala maxaa jiro ana waan leeyahay haruna daatiin haruna wata ana maxaa wata awla dadaba fala ku wadana maxaana galnayna insha Allah ilaahay loo kaso gambarka faafaan galinaya wali ka fana la rabaa ana assalaamu alaykum maraba inaan maartay ogeysiyo ilaa hilaab calida hilaab bihiisa u cadeystaa tan kale waan idin salaamay dhammaantiina meeshimiwa haweenka ragga indhagaradka salaadiinta inta meesha fadhida cawdaaqe waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib gobashan maanta aad dhigateen oo gabadhan ay dhigatay horta gabadhan hor baan ugu soo shaqayno u soo doorannay annaguna iida abaal reerna abaal ka rabin iida waxba ka rabin 24 sac baan aan u fadhiyay ay darteeda meel u fadhiyay anoo chief yaa sida ajantaan inta kuuraha ka dhaco oo kuuraha laga xisaabo oo iid ya cali bulow iyo aadan bariya laga dhawaaqo yaan soo dhaafin ilaahay mistay meeshaas waligayna u tagay asaasan ku yeelay ma dhihina waxaan ka socday waxaan ka tarjumay waxa way hadafkii cidda ay lahayd baan marka iyada aniyaan yaan taabagelinahay soo saas ma sida hadda ay wax wado sida ninkii ugu horeeyay sheegay ani maalin cawdaan iskugu yeero majaroon maxamed uu joogo oo meesha aan joogay madaxda dhan ay imaatay gabadha hadal ay ku hadashay oo dadka qaarkii ay kama seereen ani hadda aad iyo aad baan oola dhacay waxay sheegtay 700 iyo intaasoo ruux inay ka bixisay baasiri markaas ragga qaarkiisa madaxda ahayeen baa maseereen waxay dhaheen badhaas ku furin waxaa macna annaka ka shifin marka insha Allah taala gulf waa warqaba hadda inta ay haysay aniga hadda mar baa jirta canugayga aniga uma geysanin niman baa u geeyeen ay mid magaca ku dareen ilaal baqarsanay waa laga bixiyay way ka bixisay hadda bilow wuxuu dhahayaa siday wax u waday waa runtiis had maalin baasal qaybinayaan hadda waa iga hoos baxday hadda ilmi waa joogaan haddana waxa ku rajeeyay hadda inay wax ka qaban karto marka insha Allah taala cawdaaqow gabar waxaa jirta rag dhaanto rag waxaa jira rag baa loo bartay wuxuu yiraahday Allah yaa bilcaan ka dhigo baalka ka jeexa oo faadumo kugu bedela ayada kaaga bilan reerka saas ma rag badan rag wuxuu yiri rag baan ahay gabar waxay rag baan ahay looma rooro raaxa raayu qabaan rag bay dhamaan riya marka gabadha hadii gabar ay ahayd kursi weyn oo muxuu ahay la yiraahdo وما رب إلهي مستعد لسه عابنا إنه كان إن مهدنا إلهي مستعد تاي لقى عليه أو لو مهد عليه هذا إيمان تهدنا كاسة بكرة بنداي هدنا كعدة نحدد أي ربطه إلهي مستعد تاي وحنا مرينا أيضا التجابي ولا أرك إنه يبغى إلهي مستعد وحصو قرته ويسكف ضده لكن وحجرته وحلا فرته كله فورمان برتو قنيو وحلا جبوا يبو قال أبوحان كرسي هذا نبغى كفرديا هذا واسو شغته إن كان واش شغته وعلى تلين دونا إن شاء الله تعالى وحيطلق قطة شلو يديك قلنا رالك النقطة إلهي نحن خرجينا خير نقطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulankaas wuxuu ku saabsanaa endorsement waad ogtahay aniga hadda Mama County waan ahay oo Garissa County oo dhan baa u dhaxeeya bataba kale ay qabato abadi kale waxa waay inaan degmada aan bedesho oo xagga faafi aan aado marka tolkii waxaan u maleeyaa wiilal far badan baa taagan oo aan isla taaganahay oo tolkii hadii waa la tashani intaas oo qof oo taagan jidka isla mara lama dhahayo
marka tolka way fadhiisteen wax badan bay ay hadleen wax mitinyaal fara badan baa la dhigay wax badan baa la falanqeeyay marka waxay arkeen in canab ay kursiga faafi maanta ay u qalmato waxyaalo fara badan bay fiiriyeen way shuureen marka maadaama aniga aan ahay county MP oo 6 sub county maanta aan xukumo oo hadda qof siyaasi ku cusub aan ahayn qofka maanta baarlamaanka u fadhiyo reerkana aan ahay waxyaalo fara badan bay fiiriyeen marka waxay arkeen inaan maanta aniga faafi aan u qalmado أنا جيت عيني أفكي عن بحسني جيت كستانجل أقلوني كستان سيحني ومقليسي مركا سنساري ده مركا قطة دعانو قال سو أروريا فافي كسو أروريا قال استعلا عندي مركا إذا أنت حمارة مركا إيسو دوبادة إن شاء الله فافي أنا رواية ديمو فافي إذا أنت تخيلو دن لو قفو قارس جوغانو وميل قولي إنتو لسكوه جيرو وحيرو حما تريسو reefaanki halka way ku idin dhisaa laga imaaday garmagaal laga imaaday burra laga imaaday dooya laga imaaday waxa laga imaaday caalin juqura laga imaaday harbola laga imaaday buuro qolola laga imaaday taashooya laga imaaday meel laga imaaday malbo daadeeriya laga imaaday warab laga imaaday marka anaga waxa nadiira laga imaaday anaga waxaan ku tashanayno oo maanta kuura ani aan ka rabo dadkan gaaris joogo ma daayira marka dadka lagu xisaabtamahay oo quraha laga rabo inkastoo reegaarisna laga rabo laakiin dadkaas xagga degan marka reegaaris yaa isku keenino guriga lagu xirino yaa la dhihi waa reeg faafi adalkaas benwa marka siyaasadda si dhexgalay laakiin safartan aniga waxaan diyaar u ahay oo sarwaal gaabana u soo xirtay niman inaan la legdamo walaal waad mahadsan tahay dadweynihii gaaris horta waxaan ugu baaqayaa oo horta inaan u hormariyo aan rabo aniga haba i qabate habadii kursiga faafi waa i qabate laakiin still waxaan ahay women rep gaaris oo xafiiska waa furan yahay still kursigii women repnimada wali kama tagin oo waxa hayo dhan reegaarisa iska leh taas waa tuu isoo dhawaadaan leeyahay gabadhii intay faafi aadi yay reefaafi noqotay haydihina xafiisku inii furan yahay sidii ani aan tuulo kasta u aaday baan u aadi reegaaris oo dhan 6 sub county-ga marka isoo dhawaadaan leeyahay tan kale markaan reefaafi aan la hadlo reefaafi waxaan leeyahay waad mahadsantihiin maanta aniga shuxurtayda ma wala soo koobi karo wax la soo koobi karo maahan aad ba maanta u qiriyooday maanta hadalihii meesha ka hadlaayeen hadii kulay dadweynahana way dhageysan doonaan intii meesha joogtana kulay dhagahooda iyo mihirkooda iyo aqligooda way ka buuxsadeen marka reegaaris waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sida ay sharafteen ilaahay inii sharfo waad mahadsantihiin kulay sharafta maanta aad ii sharafteen oo aad meesha ii gaarsiiseen kulay wax qabadkayga iyo macnaha dadkayga inaan wax u qabto iyo kalsoonida aad igu qabtiin iyo ani naftayda kartida igu jirto waayo waxa maanta aan u soo gogladay faafi aana ii qaadeen marka waxaan leeyahay iguma qasaari doontiin reefaafiyow gabar la soo doortay anaga had nooguma horeyso reegaaris hadaan nahay soo maahan marka waxaan leeyahay reefaafiyow iguma qasaari doontiin waxaan dareensanahay ani nimanka inaan ka fiicnaani doono 100% oo nimankana waxaan leeyahay waxaan u maleeyaa reefaafi waxa ka taagana u maleeyaa 6 nin ana dadaba ku oo dumar nimanka waxaan leeyahay kiwaanjada waxa la iskugu imaanayaa dagayga 6 nin oo taagan waxaan leeyahay isa soo diyaariya ani dagaalkayga waan bilaabay dagaal hadii ma aha dagaal oo lisfeerayo iyo waxaas ma aha feer hadday imaatana waan garanayaa aniga hadii ani anab the village gaala insadaha aniga village aan ka imaaday dadka markay ay isku ay maxaa la dhahaa ay isdagaalayaan qonof wax la dhahaa jirta qofka marka waji inta iskaaga imaatiin isku boodin isqabsatiin ana qonofti ragga lagu qonfayaan garanaya marka waxaan leeyahay inagana isa soo diyaariya sarwaal gaaban soo xirta anab kaambeenkeeda wuu bilaabtay anab faafi ayda iskale way ku dhalatay way ku akhrisatay abtunaa way degan tahay maanta had wax la aqoonsan yahay faafi degan anab baa jirta oo maanta la dhihi karo anab faafi ka imaatay iskuulkii aan ka soo akhristaa maanta jooga oo burra primary hooyada ilaa hadda degan aniga markaan faafi tago marti kuma noqti
gurigi aan ku koraan taga marka nimankan martida oo faafi markay tagaan loojimaha seexanayaan waxaan leeyahay welcome jaambida u fidinaya